بسم الله الرحمن الرحيم داود يا لكسو دوادا ويب سايت كحمر عدد oo idin soo gudbinaya waraysiyo iyo kulamo oo gaar ah kulanka maanta ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa waraysi aan la yeelanay Umar Sharif Yunus oo kamid ah qurba joogta ee ku nool wadanka Masar in badan ku noolaa ayaa waxaan rabnaa Umar Sharif in aan ka ogaano waxyaabaha uu kala kulmay qurbaha ee wadanka Masar aalabo inta badan yani waxyaabaha uu kala kulmay ayaan su'aalo weydiin doonaa aad u maasan tahay horta wadankan ma ujeedid yani waqtiga aniga ay imaaday ilaa hadda laga joogo yani 7 sano oo wax yar u dhimo waayo maxaa yeelay wadankan ma ujeedid yani wadan aad u fiican waaye waa fiican yahay yani muxumo يعني dhibaatada aan kala kulmo waxay tahay horta yani wadanka adiga daa'imaatid oo luuqada aan ka siinay yani dhibkeeda leedahay yani fakta hore waxa fiican yani luuqadeeda wadanka inaa adiga aad baratid teedi kale waxaan isla wadanka markaan soo galay yani Soomaalidu adaa ugu soo horeysidaas dhaha Soomaalidu adaa ugu soo horeysid markii eelboorka aniga aan ka soo degtay waxaan arkay dad la ishuumay sida shimbirta camal waa yaabi ana hata dadkan maxaa waas dhahay markaasaan beeshi leeyga soo waday yani xaafada la keenay xaafad markaa la keenay guriga albaabkiisa markaa ka soo baxay yani gurigo kale albaabkiisa aan istaagay guriga isla jiirada isla gurigii la waxaan isleeyahay maxaa xaafad kale ma tagtay isleeyahay marka yani waxaan aan la soo wareegsaday gurigii isla gurigii aniga aan degnaay jiirad kale la soo wareegtay yani guriga kale laan bataaganahay waxaan isleeyahay xaafad kale ma lagu keenay yani dadkii iyo gurihii waxay dhan isku mid ah noqdeen markaas anoo wajaha wareystan oo labada dhinac aan fiirihay qof ma igsan waday hore meesha maxaa u taagan tahay leedahay maxaa yarkii shalay imaaday matiido ha shalay imaaday aan dhahay waa wajaha wareystan aan dhahay waxa maleynaa baabuur ma soo raacin aan dhahay xaafad kale inaan jooga isku maleeyaan warni oo guriga jiiradka le waa inta ka baxaa leedahay guriga saas ku tag toban maalmood guriga soo baxeen gurigii saasaan ku imaaday marka wadankan wax waaye horta yani wadan iska fiican waaye shaqo iska taalo yani nabadiisa aaday u fiican tahay marka waxa uu yaab badneed maanta aniga uu yaab badneed waxay aad anoo baawur aan saarnaa baawurkii aan fuulay yani meel aan u socdo wax yarka hurdi ila tagtino markii hurdi ila tagtay waxaan arkay yani naag le kurkii taagan kurkii kur jiray see camalaan stay naagtan ayadu way daashi oo maleena yani waxay rabtaa yani amay daashi yani fadhiga ay rabtaa camal ay gashino naagti marka waxaan ku sameeyay yani hurdadu markii aniga xoogo aan ka soo baxay yani cunugoo yar ay wadatay cunug yar lugiisay ugu taataabatino madax marka waxaa la yiri yani waa aragnimo adeegsaa la yiri haddii luuqada aan ka siinay ma fahantay waayo aragnimaday aan adeegsado markii naagta aan saan u fiiri markaasaa ninkoo kale wuxuu yiri yani booska ma sii sidoo adiga waxaan dhahay boos haddii la rabo in cunug lugiis la isku labo macaanaan dhahay ma fahantay haddana soo fadhiisataan dhahay ma fahantay boos tartiib waa la isku weydiigaa cunug lugiis in la isku labo macaane haddana soo gasha soo fadhiisataan daawadayaal magaaladan Qaahira ayaa waxaa ka jirta yani dadka oo wadanka soo galay in muddo ah sii jooga ayaa waxa ay la kulmeen dhibaatooyin ama xagga yani wax badan ayagoo shaqo la'aan ay ka jirto wadanka Masar Soomaalida ku nool ayaa inta badan waxay u badan yihiin inay seexdaan maalintii oo kale ay iska sii hurdaan waqtigii sii dheeraaday ayaa macnaha ayadii meesha lagu haynin nabadgelyo wadanka loogu laabto aysan jirin ayadoona leeminkii lagu bixi jiray ay aad u yaraadeen saas darteed dadka ku nool ama muwaadiniinta Soomaalida oo ku nool wadanka Masar ayaa waxay door bideen in ay waqtigooda ama intay fikir lahaayeen ay iska sii jiiftaan ay sii wadaan waxaan ka weydiinayaa aan ka wareysanayaa ama su'aal aan ka weydiinayaa jiilka wadankan wadan iska degan waaye wadan iska fiican waaye muxumo dhalinyartana yani waxay u badan yihiin baagamuunta yani shaqo ma taalo wadankan okay laakiin waxbarasho waa iska taalaa qof walbo yani wuxuu iska baranaa wuxuu iska faa'iideysanaa yani muxumo dhalinyartana qaar waxay baranayaan qaarna waxna ma baranayin marka yani
يعني wax iska cun hurud soo kac hurud yani wax iska cun yani waa laga fiican yahay qofka inuu iska faa'iideysto wax walba oo iska barto aad iyo aad u fiican tahay marka يعني qof walbana yani wuxuu jecel yahay wadankan sida uu bixi lahaa oo jecel yahay horta waayo dhalinyaro badan oo isla imaanaya jirto dhalinyaro badan oo isla imaanaya jirto dhalinyartaas hadda yani ma fiicna yani oo maartay oo wax walba yani fudeed adiga aad ka dhigatid yani ma fiicno dhalinyaro aan isla imaan wadankan hal mar isla soo galnaya jirto qaarkood baday ku dhamaadeen qaarkood waa bixeen qaarkood way taariibeen Yurubtay galeen qaarna yani taariibay badan ay ku mareen okay wiil oo saaxiib ayaan jirto yani si fiican aniga asina la Quraan iska keesayay laakiin dad qof is hoos galay aniga asin ma ahan wiilkaas garaadam waxaan ogaad yani aabi markaan qof kale oo yani qaraabo iyo markaan warsad waxa la yiri wiilkaas badow ku dhintay aad iyo aad aan ma aragtay ula qalbo markii yani waa deganaana aad u fiican tahay wiilal kale oo iska bixin waa jirta yani oo wadanka oo maartay oo badda markay ay baxeen oo doonta ay koreen yani doonta naftirkeeda ba dhaaftay Itaaliya ba dhaaftay ba si wareegsanaysa doonta way noqtay faanti markii yani doonta markay ay noqtay ee badda yani saa hirkilo u tumaa gadaadna waa soo qabtay dhalinyartii qaar waa la xiray qaar yani wax waaye waa la iska soo deeyay yani qof bas iyo noqday markii yani fudeedka sidiisa ma fiicno أنا ورت ودن كان أنا واحد عن ليابي أنا أركي واحد عن ليابي وحيد تاي دور أو واحد أركي جيرات سديت خفض وبورصة يا أركي جير دور أو واحد أركي كل جت ميزان هدي لسارة أبدا دقائقين أنا أركي هبا أنا دقائقين أنا أركي واحد أركي ولقي دكتور شيء جير مغلب معاينة حتى أركي بكيل أنا أركي بكيل ميزان لسارة أو واحد أركي هبا أنا دقائقين أنا أركي والدورة الصومالية ay joogto markii maanta amal in la qalo oo la rabo wallahi lugaaga hoostiisa inay ka baxdo asdeed qof lagu bursanaa hatta boodka inay ka boodda ee minindado ay dhex galin ee naagti oo mininkaas ay degnay waxa leeyahay soo qabo mininkaaga gashay leeyahay ma fahanti hatta heer waxay gaari hatta inay biibto biyo iska daayay hatta waxay hatta bisaagaysa aadaabta ee leedahay waa yaabay taadi kale بكيلو أو واحد أركي أو ميزان أو فدينا أبوده بكيلو عليه واحد كأرض بدل ملها نليري واحد بكيلو بيحي بركة بيلا على الوضع ليري واحد كأرض بدل واحد كبوتم بدل ملها نليري ميزان الفريسي آداب تقوليه ويا مكعة إلا اللي يسود دجي مويه مركب واحد أدونك واحد كسرت على أركع واحد كسر وعلى أركع واحد كسر مع أوجادي يعني إن لا سماي كرو إن لا دخل كرو إن لا أبوابي كرو أوجادي مكلان waxa la yiri minka waxa ku xarti wax loo yeel waa la yiri doorna aftarisha isleer tahay ya kor waa yeel wada hindho waa la yiri ma fahanti marka waxa la rabaa meeshan wax walba yani aqligaaga inaad ku dirsid aan rabaa صح masar jilka marka aniga hadda anoo 10 maalmood 15 maalmood aan joogo aan meel oo waxaan aadi yani xaafadeeda ka dheeran aadi inaan iscuray waxaan dhahay magaalada waa kalbarati shanto xabba af carabi aad turtidna waa haysataa afku waa kugu jiraa mafahanti isku difaac waxaan dhahay meesha marka mar walba waxaan dhibsaday meesha aniga dadka qaraabna markaan u tago waa liisu sugootiha waa lay keenaa haddana beri waa lay wada ayaga wada maalin kas yani horay gadaal in wada maan yani inaan aniga aan tago meeshii oo ka bacdi haddana yani soo xuray oo keligay inaan suudka soo xirta keligay aan banaanka aan soo baxaan rabaa baawur alla baawurkii aan arko markaas aniga aan soo kor xaafadeeda imaado yani sidii aniga xaafadii oo aan ku bartay camal markii aniga baawur aan soo raacay waxaan ka xishooday iyo jooji naftirkeeda aan ka xishooday iyo jooji waxa la yiri ala gamba allaha waxaan arki jirnay muqdisho baawurka oo madiina aan ka raacno geed qolaac iyo jooji aan iska dhigi jirnay wax kasta fudeedeen oo aad لكن ماشي محل جاروا على جنبنا ده على جنب نفط كذا ما كحشاضي بعني لو ده ناقة هرتي فديسي جرجيج أبتيس أنا أركوي جرجيج كان وياي أنا كحشاضي باورك أو حوك يسوق قدبي على جنب نفط كذا مكي يسوق قدبي هاي على جنب ذي نفط كذا بيجوسب يجوجي ذي نفط كذا أبي يجوسب